سائلكن wuxuu leeyahay sheekh waan ku salaamay salaan kadib hadii gabadha iyada oo sooman ay xanuunsato ayna suuxdanta kadib soonkii miyo ka jabay waa su'aal macnaha hadii la soo gaabiyo suuxdinta soonka miyo jabisa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثناء الله والصلاة والسلام على رسول الله suuxdinta على الصحيح hadduu ruuxu soonka soo niyoodo oo waagu baryo isagoo soonkii niyooday oo maalinka qayb ka mida uu suuxo soonkii waa u jiraa soonkii ma jabayo wuxuu soonku jabayaa haddii maalinka oo dhan uu ruuxu suuxsanaado miyirkiisu maqnaado ama habeenkii uusan sooba niyoonin oo suurtagal ayna u noqonin markaas soon ma jiro ama hadduu maalinka qaar muddo ka mida suuxo haddana soo miyirsado soonku waa u jiraa wallahu aclam sheekh saailkan kale wuxuu leeyahay waxaan soo galay iyadoo taraawiixdii lagu jiro anna aan weli cishihii tukanin imaamkii ayaan la galay taraawiixdii waana la dhammaystay kadib ayaan waxaan tukaday cishihii marka sidaa ma u kala hormarin karaa dhib ma leh waa loo kala hormarin karaa keliya uun cishahaagii baad dib dhigatay waqtigu intuusan bixin inaad tukataa muhima oo habeenka niskiisa intaan la gaadhin inaad cishaha tukatay ayaa muhima laakiin asal ahaan muxuu ahay salaad sunna iyo waa la kala hormarin karaa laakiin taa marka laga tago salaad waa asaxaysaa sida fiicani waxay ahayd inaad cishaha tukato kadibna aad taraawiixda ka dambaysiiso laano salaad sunna way noqon laakiin salaadii taraawiixda asal ahaan iyo salaada habeenkii salaatu leylku waxay ka dambeeyaan cishahay ka dambeeyaan cishaha marka la tukada kadib baa waqtigoodu soo gala laakiin asal ahaan sunna aad tukatay waaye cishihiina waa asaxayaa salaad ahaan sunnahaana waa asaxaysaa sidii fiicnayd ayaad garab martay wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh saailkan kale wuxuu leeyahay 11 sano maanan soomin cudurdaar la'aan oo nin dhalinyaro ayaan ahaa kadib nin sheekh ayaan u tagay waana weydiiyey wuxuu ugu yidhi soonka ilaa waa lagugu leeyahay sheekh xataa wuxuu leeyahay haddii aan bilaabo soonkii waxaa laga yaabaa anoo dhexdoodaba dee nafta meel la isma surin waa la isu suray marka haddii aan dhinto xataa ilaahay ma ii qabsan karaa miyuu ii qabsanaya macnaha soonkaas tirada badan almuhim goortaad dhimanaysa ilaahay baa garanaya adiguna ma ogid cidina ma oga aan alla ahayn tabaaraka watacaala toobadkeen haddaad toobad keentay sida culimmada badankood ay qabaan soonkii kaa tegayna soo qalle kolba saad u awoodi karto inaad dadejisana isku day insha allahu tacaala haddii toobaddaa saxda aad la timaado muddadaana aad dadaasho soonkii aad qallaynaysana qallihiisii aad la timaado aad ku geeriyooto isagoo oo muxuu ah wax kuu dhiman yahay waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala toobaddaa ilaahay inuu ka aqbalayo hadday shuruuddeedii dhammaystirato marka dadaal uun insha allahu tacaala kolley ruuxii toobad keenay الله وحول النبي كان وحول صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كما لا ذنب له روح الذنب كتوبة كاني وحول لم يدعسي سوى الذنب لهين وكله مركا ددال انت نفتك وقسميسو والله اعلم جزاك الله خيرا سائل كان وحول يهي قربها ايو كنو ليهي waxaan ka shaqeeyaa xanaanada dadka waaweyn oo gaalo ah waxaan arkaa cawradooda anigoo sooman arintaas soonkayga wax ma u dhimaysaa way u dhimaysaa laano cawraadka in la fiiriyo quraanku waa diiday allah markuu ragga la hadlaayay muuminiinta ah waqul lilmu'miniina yaghuddu min absaarihim wa yaxfaduu furuujahum ragga muuminiinta u sheeg baa nabiga sallallahu alayhi wasallam indhahooda ha laabeen xubinka tarankana ha xifdiyaan dumarka ayada ku xigtana lagula hadlay waqul lilmu'minaati yaghdudna min absaarihinna wa yaxfadna furuujahunna dumarka mu'minaadka iyagana u sheeg indhaha ha laabeen xubnaha tarankana ha xifdiyaan saasuu ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala marka cawro aan ku banaanayn inaad daawato sax ma aha allahumma inay markaa duruuftu kalifto oo duruufta kalifi kartaa waxay tahay dhakhtar dadkii daaweynaya oo kale ruuxaas waayeelka la xanaaneynayo sida saxda wax weeye haddii ruux qaraaba iyo ehel xanaaneeyo la waayo mushkilada jirta waxay wadamada gaalada lagu nool yahay dawladda mas'uuliyadda qaadata markaasay dad u shaqaalaysiisaa laakiin inaga diinteenu wax weeye
ruuxan kaata qaraabadiisii caruurtiisii walaalihii dadkii la dhashay dadkii dhalay dadkaasaa mas-uuliyadda qaadanaya dadkaasina inta badan maxaarim bay u yihiin isagaasoo kale marka wax way iyaga xanaaneynaya cawradiisii yani wax way yani ilaalintiisii wixii iyaga u istaagaya haddii muxuu ahaayey ay noqoto xataa ruux ajnabiya in looga maarmi waayo waa in dumarkana dumar ay xanaaneeyaan raggana rag ay xanaaneeyaan laakiin in iyadoo dumara ay rag cawradoodii da'ba ha ahaadeena ay faraha kula jirto ama isagoo nina inuu dumar cawradoodii uu faraha kula jiraayey waa arrin foolxun waaye wax mubarir sharci ah oo bannaynayana ma jiro ruuxa muslimkaana waxyaalaha noocaas oo kalea inuu taxaashi ka sameeyaa fiican almuhim cawraadkaasi ishaadu ku dhacayso ama aad gacmaha kula jirto shaki ma laha inay soonkaaga dhib u geysanayaan wallahu aclam jazaaka allahu khayran sheekh saa-ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh waxaan qabaa cudurka cagaarshowga noociisa loo yaqaana hepatitis b waa cudur ku faafa galmada dadka waaweyn hadduu ku dhaco boqolkiiba 90 ilaa 95 way ka caafimaadaan boqolkiiba 10 ama 5 wuxuu isku bedelaa cudur jirkooda ku raaga ilaa iyo nolosha inta ka dhiman marmarna wuxuu sababi karaa dhimasho marka sheekhow haddaan u galmoodo xaaskayga anigoon dhib gaarsii islahayn maadaama boqolkiiba 90 ama 95 laga yaabo inay ka caafimaado laakiin noqon weyday inay ka caafimaado sidaana ku dhimatay wax dembi ah miyaa iga soo gaaraya xanuunada faafa oo bini aadamku qabo labada ruux ee wada jooga isqaba hadduu mid ka mida ku dhaco xanuunkaasi waa inuu u sheego cidda noloshu kala dhaxayso hadday xaaskii tahay waa inay ninkeeda u sheegto hadduu ninkii yahay waa inuu xaaskiisa u sheego xanuunkaa faafa hadduu xanuun halisa yahay oo khatar gelinaya ruuxa waa in ruuxii haddii ay tahay boqolkiiba boqol waa gudbayaa xanuunkan ruuxiina waa dilayaa waa in laga badbaadiyo waa inaan ruuxii sabab loo noqon inuu dilo nabigeenu sal alay wasalam waa kii lahaa xoolaha jiran iyo kuwa fayow yaan laysku darin uu nebigu sal alay wasalam si kuwan yani fayow aynan cudurka u qaadin marka waa la kala badbaadinayaa haddii ay tahay nisbada ama basantiga xanuunkani geerida uu keeni karo ay yar tahay laakiin ixtimaal wuu keeni karaa waana gudbi karaa geerina waa keeni karaa laakiin waa nisbo yar hadday tahay markaasi waxay noqonaysaa xaaskiisu hadday raalli ku tahay oo intuu u sheego ay saa raalli ku noqoto oo sidaa galmadu ku dhex marto oo ay ku mucaamaloodaan iyaduna raalli ku ahayd xanuunkana ay ku ogeyd markaa mushkilo ma leh isagana wax kama soo gaadhayaan ayadana muxuu ahaayey dembi kuma ay lahaa dembi keliya wuxuu ka imaanayaa inuu u qariyo oo isagoo xanuunka isku og uu u qariyo sidaa kula mucaamaloodo gabadhii xanuunku u gudbo kadibna ay halis gasho marka waxa weeyaan waxay noqonaysaa culimada qaarkood say leeyihiin ruux sameeyey dil kama dil muxuu ahaayey ama geeri uu sabab u noqday ayay markaa noqonaysaa xukunkeeda qaadanaysaa wallahu aclam sheekh jazaaka allahu khayran saa-ilkan kale wuxuu leeyahay gabar 3 bil qallan ayaa uur qaaday ma laga soo xaaqi karaa uurkan dambe maadaama uusan caloosha aysan qaadi karin culays ama uur dambe meeqa beri 3 bil 3 beri bil 3 bil masaladaasi waxaa lagala tashanayaa dhakhaatiirta isbeshaalistayaasha ku takhasusay arrinta noocan oo kaleeta ah oo weliba muslimiin ah dad lagu kalsoon yahay ayaa la raadinayaa dhakhaatiirtaasi haddii ay muujiyaan inay gabadhu khatar ku jirto nolosheeda caafimaadkeedu inay halis ku jirto oo weliba nisbo sare ah basanti sare hadday muujiyaan in gabadha nolosheedu khatar ku jirto jawaabtu waa laga soo xaqayaa laanna markaas naf xaqiiqiyo hooyo iyo naf aan la hubin ayaa markaasi la kala dooranaya midii la badbaadin lahaa nafta hooyaa la badbaadinaya marka khatar kaleeto hadday hooyada ku imaanayso caafimaad oo halisa sidoo kale waa la badbaadinaya haddii laakiin ayna mushkilad weyn jirin marar badanna way dhacdaa yani hooyo la qalay oo ay dhakhaatiirtu ku muddo intaas uur ha qaadin oo uur qaaday oo haddana mushkilo ayna imaanin oo caadi u dhashay way jirtaa
haddayna marka jazaaka allahu khayran. Saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waxaan wadanay markab xoolo noo saarnaayeen, xoolihii ayaa naga dhammaaday, waxaan is aragnay markab kale oo ay leeyihiin qolo aan muslim ahayn, waxayna nagu yidhaahdeen xoolaha dhintay nooga beddesha kalluun oo iyaga ay wateen, innagiina kalluunkii ayaan ku beddelanay xoolihii naga dhintay. marka arrintaa sax miya? jazaaka allahu khayran. saa'ilkan kale wuxuu leeyahay waxaa dhintay abtigay, wuxuuna ka tegey 3 wiil iyo 2 gabdhood iyo xaaskiisii uu markaa uu qabay, hooyadii iyo aabbihiina way dhinteen, wuxuu ka tegey hanti. waxaa jooga walaalihii oo wiilal iyo gabdhaba leh, ee hantidii dhaxalka ma ku leeyihiin walaalihii, maxayse ku leeyihiin haddii ay dhaxalka waxba ugu lahayn waxay tahay meydka dhintay caruur wiilal ah duu ka tegey, walow hal wiilna ha noqdee walaalihii meydka walaalihii waxba ma ay laha. waxay la mid tahay hadduu aabbihii ka tegi lahaa, meydka aabbihii hadduu noolan lahaa walaaluhu ma yimaadeen. wakadaalika caruuruu dhalayoo wiilal ka mid yihiin hadday joogaan, hal wiilna ha ahaatee walaalo waxba meesha uma yaalaan, waa maxjuubiin waaye, xajbi xirmaan. marka waxaa dhaxlaya caruurtuu ka tegey oo wiilashii gabdhaha iyo xaaskiisa, ama walaaluhu waxba kumay laha dhaxalkaas. wallahu aclam. jazaaka allahu khayran. saa'ilkan kale wuxuu leeyahay sheekh, waxaan ahay qof muslim ah oo adduunyo haysta, caafimaadna qaba, haddana sida oo ay tahay waxaan iska kari la'ahay oon la noolahay mar walba murugo, marka muxuu noqon karaa dhibkii haysta? xoolaha adduunyada iyo kuraasta iyo magaca adduunyada iyo waxyaalahan adduunka la raadiyo ruuxa ma walwaltiraan, qalbigiisana ma dejiyaan. waxa qalbiga dejiya oo ruuxa walwaltira oo noloshiisa xasiliya oo adduunka raaxo uu ku dareemaa waa markuu xidhiirka ilaahay uu la leeyahay wanaajiyo, qalbigiisu markuu allihii abuurtay ku xidhmo, daacada ilaahay markuu hagaajiyo, markuu muxuu ahaaye noqdo addoon saalixa, qur-aanka akhriyo, cibaadaadkii salaada badsado, sadaqaadka badsado, ilaahay tabaaraka watacaala dariiqiisa ku tooso, diinta ilaahay iyo khayrka ka shaqeeyo, markaasi addoonka xaalad walba uu ku sugan yahay ilaahay wuxuu siinayaa yani wax weeyaan xasilooni qalbi buu siinaya. aladiina aamanuu watatma'inu quluubuhum bidikri illaah, alaa bidikri illaahi tatma'inu lquluub, ilaahay dikrigiisay quluubtu ku xasishaa. saas daraaddeed ruuxaas iyo dadka la midka waxaan dhihi lahaa waxaad ku dadaashaan ood qaadataan daawadan ilaahay quluubta u soo dejiyey ee quluubta ku xasilisay, quluubta daaweysa. yaa ayuha annaasu qad jaa'atkum mawcidatu min rabbikum washifaaun lima fi suduur, yani daawada qalbiga iyo cudurada galay daawadeedu waa qur-aanka, waa taacada ilaahay tabaaraka iyo dikriga weeye. marka halkaas ku dadaal baan dhihi lahaa.
xoolaha aad haysatana ka shukri waajibaadka ka bixi sadaqayso dadka baahan iyo masaakiinta ixsaan u samee qalbigaaga ilaahay wuu dejin insha Allah tacaala allana bari shaydaanka iyo shayaadiintana aad uga magan gal wayma yanzaqannaka min ash-shaytaani nazghun fasta'id billah ilaahay magan gal oo xaqiisa u carar wallahu a'lam jazakallahu khayran sheekh saailkan wuxuu leeyahay waxaan nahay nin ganacsado ah dukaan ayaan leeyahay sanadkiiba mar baan xisaabiyaa zakana ka bixiyaa hadda bishaan waxaa ii dhammaatay sanad markaan xisaabiyey waxay noqotay 4,249,200 oo shilin oo Kenya ah culimo ayaa igu tiri boqolkiiba waxaa ka baxaysa 2,500 ee arintaas sax miya si waa sax boqolkii waxaa ka baxaya 2,500 laakiin sidaas waxaa ka fiican in loo xisaabiyo hantidoo dhan waxaa ka baxaysa muxuu ahaay boqolkiiba 2.5 2.5% ayaa ka baxaysa si kaloo ka fudud haddaan kuugu dhigo waxay tahay lacagta 4 milyan iyo ziyaadada waxaad u qaybisaa 40 calculator qaado 40 u qaybi waxa ku soo baxaya wixii ka baxayay laakiin waa cushur waa rubuc cushur baa boqolkiiba yani waxa weeye 2.5% ayaa ka baxaya boqolkiiba boqolka markii loo bedelo yani waxa weeye basantiga laga saaro marka waxay noqonaysaa 2,500 labadii boqol waxaa ka baxaya muxuu ahay 5,000 baa ka baxaysa yani halkii milyan waxaa ka baxaya 25,000 baa ka baxaysa sidaasay markuu soconay wallahu a'lam jazakallahu khayran sheekh wuxuu leeyahay saailkan marka hore sheekha waan salaamay salaan kadib marka labaad sheekh waxaad ii weydiisaan haddii la qadaray qofka janno iyo naar midka uu galayo isagoo ku jira caloosha hooyadii muxuu ka bedelayaa camalka aan samayno inta aan noolnahay go-aankii hore su-aasha labaad candhuufta afku sameeyo ma inaan tufaa haddiise aan liqo soonkayga wax miyay u dhimaysaa su-aasha hore nabigaa la weydiiyey sal alla alay wasalam sidaasaa loo weydiiyey waxay dhaheen haddii wax walba qadaran yahay bay dhaheen saxaabadu camalku muxuu tarayaa nabigu wuxuu yihi sal alla alay wasalam icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah camal sameeyo dadaala ruux walba adduunka intuu joogo ilaahay wuxuu u fududaynayaa wuxuu u abuuray kii naar loo abuurayna jidka naartaa loo fududayn kii janno loo abuurayna jidka jannada loo fududaynaya waa sabab asbaabta la imaada dadaala waxa ilaahay agtiisa ku qarsoon adiga ma taqaanid wuxuu kuu qorayna garan maysid adiga waxa lagu faray dadaal khiyaarna waa lagu siiyey iraadana waa lagu siiyey xoogna waa lagu siiyey waxna waa lagu sheegay marka berri kuma marmarsoon karaysa ilaah waad ii qortay jidsaana sax maaha yani waxa weeye waxyaalahan maqaadiirta ilaahay uu qoray qorsheeyey waa wuxuu isagu qarsaday waay laakiin adoomadiisa wuxuu ku yiri shaqeeya dadaala jidkii wakaa jidna wakaas jidna wakaa kaa qaad ama kan qaad kii aad qaadaad abaalkiisa leedahay marka camal fal baa lagu yidhi adiga laakiin laguma dirin ilaahay baa waxaa ii qoray yaa kuu sheegay wuxuu kuu qoray adiga waxay la mid tahay yani waxa way adigoo yidhi oo kale ilaahay wuxuu ii qoray inaan caydh ahaado saas daraaddeed waan iska fadhiisani inaan yani waxheli oon taajir noqon iyo inaan caydh noqonayo labadu way qoran tahay mar hadday qoran tahay aniga waan iska fadhiisanaa wixii ilaahay ii qorayn baa imaanaya ma soconaysaa maya waxay la mid tahay adoo yidhi oo kale aniga inaan ilmo helayo inaanan helaynin ilaahay baa qoray saas daraaddeed maxaa guur iyo guri dhis iyo islaan iyo rafaad iyo maxaa i gelinaya halkanaa iska joogaya ilaahay wuxuu ii qoray ha iska yimaado sax ma aha waa inaad la timaado sababta adduunyadiina saas wey asbaabtii baynu la imaanay inagoo aan garanaynin ilahay agtiisa maxaa ka qoran aakhirana waa sidoo kale wax ilaahay ka qoran ma naqaanee inaga dadaalaa layna yidhi wallahu aclam labaad candhuufta liqitaankeeda ramadaanka markii la sooman yahay candhuufta waa la iska liqayaa maxaa yeelay shaarica inooma diidin diintu inooma diidin wax reebitaana kuma soo aroorin waa ilahay naxariistiisa tabaaraka watacaala in yani cunuhu qoyanaado oo candhuufta aan liqno oo bal tufideeda nadaafad darro waaye meelaha qaarkood dadka yani caamada iyo dadka waxoogaa si xun wax u fahmay dhulkoo dhan wada candhuuf bay ka dhigayaan markaasuu wada wasakhoobaya marka looma baahna candhuufta inaad tufto yani waxa weeye iska liq candhuuftaada nacam jazaaka allahu khayran su-aasha ugu dambeysa barnaamijkeenana maanta saa-il baa wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh maxamed ilaahay ha ku sharfo
su-aashayda waxay tahay qur-aanka kariimka ah waxaa ku soo arooray in badan jazaa'an bima kaanuu yacmaluun. nebigana sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ruuxna camal uu sameeyey janno ku geli maayo. marka sidee la isku waafajin karaa aayadda iyo xadiidka? ruuxa ilaahay abaalgudka uu jannada ku siinayo ee naarta wuxuu ku salaysan yahay camalkii uu la yimid, caqiidadiisii iyo camalkiisii ay abaal u tahay naarta iyo jannadu. amaa xadiidka nebiga uu leeyahay rasuulku sal alay wasalam nina camalkiisa janno ku geli maayo ilaa inuu ilaahay naxariistiisa huwiye mooye, waa sax. waxayna isu waafaqayaan camalku waa sabab, wuxuu sabab u yahay natiijo janno inaad gashaa camalkii fiicnaa. sababkuna natiijada isagu toos uma keene, idan ilaahay ogolaansho ilaahay buu ku keenaa. camalka xun waa sabab naar lagu galo, laakiin naartii inuu ku geliyo oo natiijadaasi ka dhalato ilaahay bay u taallaa. kii marka jannada gelayay, jannadu waa deeq ilaahay, camalku waa u sabab, laakiin sababta aada la timid natiijadeedii in lagu siiyo ilaahay naxariistiisay ku xidhan tahay. macnaha wey macnaha camalku waa sabab, laakiin natiijada inaad jannada ku gashaa naxariis ilaahay waaye. midda kaleeto weeye, haddii ilaahay si dhaba kuula xisaabtamo nicamkuu ku siiyey, nicmooyinkuu ku siiyey iyo camalkaad la timid haddii laysu miisaamo nicmooyinkaa ka badan mar walba. haddii marka laysu tuuro waxba heli maysidba. sidaas daraaddeed jannadu naxariis ilaahay baa lagu galaa, sababna camalkaa u ah. sidaas weeye. hada billahi towfiiq, wasala allahuma wasalam wabaarak calaa nabiyina moxamed wala alihi wasaxbi waslem.